ده مسؤولية ده وحقادها يا روبل أنا رئيس الوزراء ده معايا ما رئيس الوزراء والدلال وحود دلال كي هاي نك محن كل الله حل دماغك كوسو بحايو كرسي وكاحر يا ذكر العكسي والدلال مرقاتي واحد كتير أهورو كياتا ودولة الصومالية خلاف قدام بي أي ودحيالو أو سفارديه لكلاقاتي أو حريرك الدبلوماسيات أو قعي إنه هدية أنتو قاعدة مع وسع حري مرقاتي باتك هاي ولا كيسين بدل وكلها وحوي ونفي عنوي نكان كل شقين هيو الله يعيش قلال وقت المانت أنت أصلا قوي هذا هي وجدديس مال أوسن مرين متشرت ضدك وحوي عن الرول باهني إمارات كواتجو وحوي كسر شغلة جبوتي واتجو وحوي كسر شغلة كينيا واتجو وحوي كسر شغلة مال كستو وتجنا الدباء وكد منها يو وكد منها يو دولة لماذا الصومالي وكريم ماذا رول باهنا على هذا باش عالم كباقة بانو دريا أنا محمد أحمد سمطر بالإيل هذا وضياش الدقن كقبل كجدان كمده هاي باش عالم كباقة بانو دريا إذا كحوق الدلك الصوماليات نباقة بانو دريا لما سقال كدقمو أو قبل كجدو وككوبن يهي نباقة بانو دريا بربر كي كبحلا وابكي لغلين باش عالم كباقة بانو دريا جورفلك lagu sameeyay gobolka Gedo oo 9 degmo ka kooban xildhibaanadii uu lahaa ayadoo awalba ay ku aqoonayeen oo Jubbaland dhexdeeda khilaafka ka jiray oo gobolkan uu uga go'ay Jubbaland ay ahayd xildhibaano uu xaq u lahayn in la siiyay 9 degmo nin joogo iyo nin laba degmo jooga waxa sid bursaday oo xildhibaano badsaday ninkii labada degmo joogay khilaafka قبل الهرو وحبا ما أنت اللي سمر هيبان هيا عيبت هذا بنان كان لصورك هيا أحمد مدوما دو تفتح حوغا باتكسو قادت قبل كجدانا كوهس كين هيا تري عدين بوحدان لو هيا كي دالكي واللغو سو دولي كين يا محان كور هذا دين عقب ستي شعب كجدا انتا سو تانجيغا كين يردق علم هيا انتا سيديار الله كين يرسين هيين أمي صوم بانا كهلين بل عالم بانا كهلين صومالي أنا كهلين dhaqaajiya dhiiga dhalinyarada dhurwaaga dhulkeena ka soo dhiciyay dhiiga dhalinyarada dhurwaaga dhulkeena ka soo dhiciyay waa dhurwaayada godka ku jira aan iska qabanna ee godka ka soo bixiya xagga adinkoon eegin dhurwaayada waa 3 qof ninka wadankeena gatay waa dani waa ra'iisul wasaarahana waa ninka la yiraahdo muxuu ahaayay ninkaan maanta oo dhan baryayna way waan barinaabo Ahmed Madoobo shalay kuwa baryay anaga war walaalo war noo qabo war maxaan ka baryana ninkana gaday oo naqaaday oo gabdhii kufsay oo gaday oo doon baa u furmo dadka ku daabulaya 4 mil baa hadda u xirana maxkamad u saar war ninkaas hadda si degdeg ah ninka imaqlay oo Soomaaliya gacanta lagu soo dhigo haduu xamar joogo gacanta lagu dhigo haduu wadanka Ilaahay meel ka joogana gacanta lagu dhigo war yaa u fadhin may baayidina gadana way ka dhacaysaa garbaarey way ka dhacaysaa doorashada wax bariya ma jira idin leeyahay wariyaa annaga dagaal waa naqana qiimihiisa iyo qiimaha iyo sharaftu leeyahay waa naqana horta qul huwa li qori baan naqana wax kala ma aqaan saaka waxaan rabaa mutadawac iska celi waxaan ducfigo meeshan taagan horaan u soo banaan baxnay masiirkeen dadkan tusayna beel caalam maxay baqti caalam waxa weeye wixii lagu heshii oo September bay burburiyeen maxay yeelay waa dastuur baa leeyahay annaga islaam baan nahay dastuurka naga waa diinta qofka hadii uu waxaan diin ahayn saana u dambeys wallahi ya Soomaali manihin soo Arab iyo Ajam iyo Aje iyo Ajuuraan iyo intay Soomaali tahay manihin dalka ugu weyn Soomaalihin yaana maqooni karaad u malaysa daloo mehelay xabad gaalada sheey xunta haday maad عزمينا أبنسنا ساكينك راعي لها أنيقا قعنتي دسان وحي كله دقال إسلام قف على ورقة حبت كبرين إلهي بقى حتى حبت كبرين سيدي أحمد بدوبة ساكي ورديان ورواهري حشور دنبو ميال مسلمنا معها
حاسد واي حقنات وماشات إلى تاكت لما ربو قبل بن وشم كل كيلومتر بط يومي قال بعد أدرك هو يجوبها هاي وأنت لو حرائط أي كل نوشة قولها هدي بانتان كرسي إتان ماشي جورنا يا أنا وحكيم جورنا يا ربي أنتي نانو الرجالة وسهل بعض التمرية أدان هاي bulshooyin ta ku nool gobolka Gedo nahaysata oo xuquuqdii iyo xaqii aan ku lahayn gobolka Gedo la dawmariyay oo la duudsiyay arinku ma aha ra'iisul wasaaraha saasay ra'iisul wasaare gobolka adiga oo ah ra'iisul wasaare adiga oo ah wax walbo waxaana waan dhamaanayaan waan la soo noqonay ra'iisul wasaare waxaan ka codsanaynaa haddaan nahay bulshada weli jaaris aad haysataa fursad ma haysataa oo gobolka Gedo codkoodii iyo dadkooda aad sudaysid annagu haddii doorasho ay ka dhacdo garbaari maxaa dhib jiro haddaan rabno mid kale dooranayna ma wax dhibaaga jiro maya laakiin inaad ceel qaalow nageysid oo tiraahdo ceel qaalow ceel wax degmada ceel wax waa gobolka Gedo degmo ka mid ah laakiin deegaan doorashada dadka iska laha ma joogaan meeshaas ma jiraan mas'uuliyadeeda waxaa qaadahaya Rooble aniga ra'iisul wasaare dhihi maayo ma aha ra'iisul wasaare waa dilaal wuxuu dilaal ka yahay ninka maxaan ku radaa xildhibaanka ku soo baxayo kursiga waa ka xiraaya haddii kale lacag isii waa dilaal marqaati waxaad ka tihiin Uhuru Kenyatta oo dowladda Soomaaliya khilaafkii ugu dambeeyay ay u dhex yaallo oo safaaradihii la kala qaatay oo xiriirkii diblomaasiyadeed uu go'ay inuu hadiye intuu u qaaday macawis u xiray marqaati baad ka ahaydeen waad arkayseen dad uu ka lahaa waxa weeye nin fiican weeye ninkaana kula shaqaynhayo alle ciise qadadaada waa tan maanta intaas hal lagu yiraahday ahayd ujeedadiisa meel uusan marin ma jirto dadka waxay u yaqaanaa roolbaahane imaanaadka waa tago waxbuu ka soo shaqshaqda Djibouti waa tago waxbuu ka soo shaqshaqda Kenya waa tago waxbuu ka soo shaqshaqda meel kasta uu tagana duba uu ku duminhayo oo ku jajabinayo dowladnimada Soomaaliya oo kala yimaada roolbaahana la yiraahdaa beesha caalamka baaq baan u dirayaa aniga Maxamed Axmed Samatar baa la yiraahdaa odayaasha dhaqanka gobolka Gedo ka mid ahay beesha caalamka baaq baan u dirayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna baaq baan u dirayaa dhammaan sagaalka degmo oo gobolka Gedo uu ka kooban yahayna baaq baan u dirayaa barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen beesha caalamka baaq baan u dirahayaayo jawrfalka lagu sameeyay gobolka Gedo oo sagaal degmo ka kooban xildhibaanadii uu lahaa ayadoo awalba ay ku aqoonayeen oo Jubbaland dhexdeeda khilaafka ka jiray oo gobolkan uu uga go'ay Jubbaland ay ahayd xildhibaano uusan xaq u lahayn in la siiyay sagaal degmo nin joogo iyo nin laba degmo jooga waxaa sid bursaday oo xildhibaano badsaday ninkii labada degmo joogay khilaafka Rooble leherow waxba maanta la isuma reebanaya ceebtaada banaanka la soo dhigayaa Axmed Madoobe uu tagtay xoogaa baad ka soo qaadat gobolka Gedo ku hoos keenayaa tiri cadayn buuxda loo hayaa dalkii waa lagu soo duulay Kenya maxaan ku raadnaa dhinac qabsatay shacabka Gedo intaasuu taangiga Kenya la dagaalamahayay intaasay diyaaradaha Kenya rusheynayeen amisom baanan ka hadlin beel caalam baanan ka hadlin Soomaaliyaana ka hadlin dhaqaajiya dhiiga dhalinyarada dhurwaaga dhulkeena ka soo dhiciyay dhiiga dhalinyarada dhurwaaga dhulkeena ka soo dhiciyay waa dhurwaayada godka ku jira aan iska qabanna ee godka ka soo bixiya xagga adinkoon eegin dhurwaayada waa 3 qof ninka wadankeena gatay waa dani waa ra'iisul wasaaraha waa ninka la yiraahdo muxuu ahaayay ninkaan maanta oo dhan baryayna way waan barinaabo Axmed Madoobe shalay kuwa baryahay anaga war walaalo war noo qabo war maxaan ka baryana ninka nagaday oo naqaaday oo gabdhii kufsay oo gaday oo doon baa u furmo dadka ku daabulaya 4 mil baa hadda u xirana maxkamad u saar war ninkaas hadda si degdeg ah ninka imaqlay oo Soomaaliya gacanta lagu soo dhigo haduu xamar joogo gacanta lagu dhigo haduu wadanka Ilaahay meel ka joogana gacanta lagu dhigo war yaa u fadhin may baydin anaga Gedana way ka dhacaysaa garbaarey way ka dhacaysaa doorashada wax bariya ma jira idin leeyahay war yaa
annaga dagaal waa naqaanaa qiimihiisa iyo qiimaha iyo sharaftuu leeyahay waa naqaanaa horta qul huwa lii qori umbaa naqaanaa wax kale ma aqaan saaka waxaan rabaa mutadawac iska celiye waxaan ducfigaho meeshaan taagan horaan u soo bannaan baxnay masiirkeen dadkaan tusayna beel caalam maxayt bakti caalam waay waxaa weeye wixii lagu heshii oo September bay burburiyeen maxaa yeelay waa dastuur baa leeyahay annaga islaam baan nahay dastuurka naga waa diinta qofka haddii uu waxaan diin ahayn saana u dambays ya soo Soomaali ma nihin soo carab iyo cajam iyo aje iyo ajuuraan iyo intay Soomaali tahay ma nihin dalka ugu weyna Soomaalihin yaana maquunin karaad u malaysaa dalooma helaya xabad gaalida la sheegay xunta hadday imaad casmigeena aan dhisna saakay ninkii raaci lahaa aniga gacantayda saan waxay ku noqotay dagaal islaam qof aan wariyay xabad ku badin ilaahay baa igu hadda xabad ku rid sidii Axmed Madooba saakay waa diyaar war waa haray xishoo dambe ma yeela muslimna ma aha xaasid waaye xaqiraadu meeshaas inay taagto lama rabo gobol dhan oo 5,000 kilomitir bad iyo webiga labaad adduunka weyn Jubba hays oo intaan oo xalaayad ay ku nooshaa golahaday baan intaan kursi dhigtaan meeshii nuuraya anna waxaan ka yimid wardheer iyo harabdigeed intiinaana waa reegada warshahan baa qabtaan waryaa haddaan nahay bulshaweynta ku nool gobolka Gedo na haysata oo xuquuqdii iyo xaqii aan ku lahayn gobolka Gedo la dawmariyay oo la duudsiyay arinku ma aha ra'iisul wasaaraha saasay ra'iisul wasaare gobolka adiga u ah ra'iisul wasaare adiga u ah wax walbo waxaana waan dhamaanayaan waan la soo noqonay ra'iisul wasaare waxaan ka codsanaynaa haddaan nahay bulshada weli jaarisad haysataa fursad ma haysataa oo gobolka Gedo codkoodii iyo dadkooda asu deysid annagu haddii doorasho ay ka dhacdo garbaari maxaa dhibo jiro haddaan rabno mid kale dooranayna ma wax dhibaaga jiro maya laakiin inaad ceel qaalow nageysid oo tiraahdo ceel qaalow ceel wax degmada ceel wax waa gobolka Gedo degmo ka mid ah laakiin deegaan doorashada dadka iska laha ma joogaan meeshaas mana jiraan